سبحانه وتعالى إنه كل شيء كلن كان أينو مانتا runtii ku dhaarinayno kuna dooranayno xildhibaanada golaha deegaanka iyo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Caynaba alxamdulillaah rabbil caalamiin ugu horeyn waxaan halkan uga mahad celinayaa dhammaan madaxda ka soo qayb gashay heer gobol iyo heer degmo waxaan kaloo mahad celinayaa xildhibaanada iyaguna golaha deegaanka ee degmada Caynaba ee runtii iyaguna maanta halkan hawshooda aan ku wadno oqaasha iyo waxgaradka iyo labeenta runtii gobolka Saraar dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh salaanta kadib kulley wixii dardaaranahay way noo haray maanta waxaan halkan aanu ka hadlaynaa waxa weeyaan inaynu baarigno lana dardaaranno runtii sida quruxda badan ee runtii sharafta badan ee xildhibaanada golaha deegaanka degmada Caynaba ay runtii u tartameen transparency oo ka muuqdo oo ay ka muuqato bisayl ma garanaysaa siyaasadeed oo runtii in sagaalka xubnood meel kaliya gacanta u taagaan badan ma sameynayso laakiin waxa dhadan sameynaysa in runtii la tartamo oo runtii codka lagu kala baxo waa bisaylka siyaasadeed iyo bisaylka dimuqraadiyadda ee runtii aynu doonayno in bulshadeena u horseedno sida hufan ee sharafta leh ee runtii ay gacanta u taagteen ee runtii isu hambaliyeen ba anaga qiimo gaar iyo macna gaar noo sameynaysa aad baan marka anagana sharaf noogu tahay in aanu idin la wadaagno dareenka waxaana leeyahay labadan nin iyagu tartamay waxay keeneen maxamed iyo mursal inay macaaneeyaan runtii dimuqraadiyadii gudoomiyaha cusub iyo gudoomiye ku-xigeenkana waa baarigeena waxaanu leenahay xilka la idin igmaday sharaf iyo qiimo la idin sameeyay ina golaha ku maamushaan ku hagtaan cadaalad iyo sinaan taa kutubka u marteen wixii horumar ee gobolka u baahan yahayna ka wada shaqeysaan markii hore waxa ahaydeen ashqaas markii dambena waxa noqoteen tartamayaal oo xisbiga dhexdiisa ka soo tartamayseen xisbiga ku soo biirteen haddana heeraa gacmaha idin soo hayay gola imka noqoteen saacada laga bilaabo waxa la idinku yeerayaa golaha deegaanka ee degmada Caynaba ama gobolka Saraar baa idinku yeeray wixii kale oo idinka hadheen reerkii waa idinka hadhay xisbigu waa idinka hadhay ma garanaysaa xisbiyadnimada ku soo baxa laakiin waxaan ka hadlayaa intiina nimka golaatiin golahaasina waxa weeyaan xeer baa yeelanaysaan isku dhaqaysaan xeer hoosaad horumarka iyo wixii la idin doortay ina ka midho dhalisaan oo aan mid noqotaan ayaan idinkula dardaarmaynaa ilaahayna waxaan idinkaga baryaynaa idinkana rajaynaynaa in hawsha la idin igmaday idinkoo gacmaha idin haysta ahirara ka qabataan gudoomiyaha gudoomiyaha waxaan leeyahay hawl adag iyo xil adag baa idin hor yaala ilaahay aad ku asturo baan idinkana ayaan leeyahay dad waxa tiin walaalaha aad iyo aad baan ugu idin tixgelinaynaa anigana waxaan ballan qaadayaa in aan si mug iyo miisaan la idin kala shaqeeyo xagga horumarka iyo xagga nabadgelyada iyo dhinac walba wadeen anigana waxaan garabkiini waa tirsanaysaan runtii golaha deegaanka ee degmada Caynaba waxaynu doonaynaa inaanu ka qaadno heerkan uu maanta taagan yahay waayo isbedel badan baa socda magaalooyinku waa korayaan bulshadeena way koraysaa inaynu inaguna horumarka qayb ka noqono magaaladeena qurux badnaato iyo magaalooyinkeena kale oo aynu la bareetano gobolada kale iyo degmooyinka kale ayaynu doonaynaa marka aad iyo aad baa u mahadsantiin dadweynaha reer Caynabana waxaan leeyahay sharaf iyo karaama muujiseen gobolka Saraar dhammaantiinna waxa muujiseen bisal siyaasadeed oo runtii la gaaray aad iyo aad baa runtii dhammaan inta ka soo qayb gashay ugu mahad celinaya xildhibaanada horena waxaan leeyahay idinkana cawl khayr qaba ilaahay idinkana haydin siiyo kuwii iyagu jiifay iyagu ku soo jiray iyagana ma garanaysaa dariiqa ku jirana iyaguna ilaahay iyagu waxa la cawl khayr qaba idin siiyo idinkana dhammaantiin ma gacmaha salaam alaykum